su'aal kale oo taas la mid ah oo uu hore inoo soo weydiiyey qof lagu magacaabo Cabdullaahi oo jooga New Jersey USA ayaa ahayd ma la ogol yahay in la ciyaaro ciyaaraha video gameska ah maadaama ciyaaraha video gameska ah la horumariyay sanadihii la soo dhaafay ama tobaneeyadii sano ee la soo dhaafay waxaan xasuustaa markaan hanaqaadka ahaa qiyaastii 35 sano ka hor waxaa jiray ciyaar video game ah oo loo yaqaanay Plus taasoo ay qasab ahayd inaanu lacag bixino si aan u ciyaarno daqiiqado kooban gaari sidaa darteed ciyaarahaas bariga jiray 35 sano ka hor umana jeedo inaan ahaa dadka jecel ciyaaraha video gameska laakiin waan yara ciyaaray waqtiyada qaar noloshayda marka ciyaarahaas oo ahaa inaad ku yara ciyaarto daqiiqado kooban waxaan filayaa inaan wax dhib ah ku jirin ciyaaridooda laakiin muddo kadib maanta waxaan arkaynaa inay jiraan horumar iyo isbedel weyn oo ku yimi ciyaarahaas oo markaynu eegno wararka ku saabsan ciyaarahaas video gameska nasiib darro intooda badani waxa ay noqonayaan xaaraan sababta oo ah in badan oo ka mid ah ciyaarahan waxa lagu dhex walaaqay waxyaabo lagu xaaraantimeeyay islaamka waxaan idin siinayaa dhowr tusaale ahaan waxaa jira ciyaaro video games ah oo ku saabsan dagaal iyo dil oo mar kasta oo aad disho tiro badan oo dad ah waxaad helaysaa tiro badan oo abaalmarino ah kadibna waxay noqonaysaa inaad ku badiso abaalmarinahaas dilka qaar ka mid ah oo aan loo baahnayninna waa dilaanimo dilaaguna waa xaaraan islaamka dhexdiisa dilidda qof kasta oo aan waxba samaynin waxa lagu tiriyaa dembiga labaad ee ugu weyn islaamka waxaa jira ciyaaro video games ah oo weyneynaya sixirkaasoo lagu tiriyo dembiga saddexaad ee ugu weyn islaamka waxaa jira ciyaaro video games ah kuwaasoo lagu weerarayo islaamka oo ciyaartu waxay ku odhanaysaa haddii aad qarxiso Maka waxaad helaysaa 1 dhibcood haddii aad qarxiso Madiina waxaad helaysaa 500 oo dhibcood waxa kale oo jira ciyaaro video games ah oo lagugu soo bandhigayo inay jiraan wadamo aan muslim ahayn oo la dagaalamaya wadamo muslim ah oo wadamada muslimka ahina sida caadiga ah ay yihiin wadamada itaalka yar oo haddii aad jabiso wadanka muslimka ah waxaad ku guuleysanaysaa ciyaarta marka dhammaan ciyaarahaas la weerarayo islaamka ama hoos loogu dhigayo sumcadda islaamka iyo kuwaas ka soo horjeeda mabaadiida islaamka dhammaantood waa xaaraan waxa iyana jira ciyaaro video games ah oo ay ku jiraan qaawanaan maanta haddaad eegto inta badan ciyaaraha tartamada baabuurta sida la ii sheegay ama aan meelo ka akhriyay ciyaaryahanada dhexdooda waxaa jirta gabadh inta badan aan si fiican u labisnayn waxa ay xidhan tahay goono gaaban ama waxa ay gashan tahay maryo qaawanaana oo inta badan uu muuqdo jirkeedu taasuna waa mid xaaraana xataa sportiska caadiga ah waxaad ku arkaysaa xumaan iyo qaawanaan taasoo aan wax kale loo samaynaynin ee kaliya loogu talagalay caanbixinta ciyaartaas waxaa jira ciyaaro ay ku jiraan khamaarku waxa kale oo jira ciyaaro ay ku jirto cabidda khamradu dhammaan waxyaabahaasina waa wax xaaraan ah inkasta oo aanad ahayn adiga laf ahaantaada ka u cabaya khamrada ficil ahaan haddana matalaad ahaan haddaad uga qayb qaadanayso shay xaaraan ah ciyaartaasi waxay noqonaysaa mid xaaraan ah waayo waxay ka dhigaysaa carruurta qaar ka fog islaamka weliba nasiib darro waxaa jira qoysas fara badan oo muslimiin ah oo iyagu u soo iibiya carruurtooda ciyaaraha noocaas ah umana fiirsanayaan inay ciyaarahani hagaagsan yihiin iyo in kale waxay ku odhanayaan way iskaga ciyaarayaan ee maxaa dhib ah ee ku jira waxay ku odhanayaan iyagu caadi uma cabayaan khamrada ee maxaa dhib ah waxa ay ku leeyihiin maxaa dhib ah ee ku jira isagu in layn cidna dili maayo waa iska madadaalo oo kaliya qoysaskaasi waxa ay si dhab ah ilmahooda uga fogeynayaan islaamka waxa ay baabiinayaan nolosha carruurtooda waalidiinta qaar maanta hadday doonayaan si ay iskaga mashquuliyaan qaylada carruurta ama si uu ilmuhu u noqdo mid edeb leh oo aan buuq badnayn waxay u dhiibayaan moobaylka waxaad arkaysaa maadaama uu ilmuhu kaga mashquulsan yahay moobaylka in ay waalidkiina waxa ay doonaan qabsan karayaan markaas waxaa laga yaabaa in ay waalidkuna u samaynayaan taas si ay iyaguna jaanis ugu helaan isticmaalka baraha bulshada waxaa loo dhiibay mobile ilmo yar oo 4 sano ama 5 sano kaliya jira waxaan ku faraxsanahay ilmahayga yari wuxuu yaqaanaa sida loo isticmaalo mobileka waxaad baabiinaysaa nolosha ilmahaaga waa maxay muhiimadda ku jirta isticmaalka mobilku marka uu weynaado ee uu u baahdo ayaad si dhib yar u bari kartaa sida loo isticmaalo maxaad ugu dhiibaysaa mobile ilmo yar oo aad ugu ogolaanaysaa inuu ciyaaro video gameskan ay badankoodu xaaraanta yihiin imika maanta hadaad
darasto waxa aan soo sheegnay oo dhami waa ay ka buuxaan badankoodu waxa ay ka kooban yihiin musiguna waa mid xaaraana sidaa darteed ciyaarahan haddii aad darasto oo aad baadho badankoodu laga yaabaa 80% ama 90% ama in ka sii badanba anigu cilmi baadhis kuma samaynin laakiin waxaan akhriyay warbixinaha waxa ay kugu hogaaminayaan waxyaabo xaaraam ah si toosa iyo si dadbanba sidaa darteed ciyaarahaas waa in si adag looga mamnuuco carruurta oo aad isku daydo inaad ka fogeyso ciyaarahaas inta u badan ee ciyaarahan video gameska ah oo ay ku jirto PUBG waxa ay ka dhigaysaa qofka mid ka fog islaamka waana mid xaaraama intaasba haddaad ka timaado marka ay gaadho waqtiga salaada ee uu eedaamo mu'adinku ilmuhu wuxuu sii wadayaa ciyaaridda geynta wuxuu ku leeyahay sug dhib ma lehe sax dhib ma laha salaadii way kaa tegaysaa ama waxaa laga yaabaa inuu fursad helo oo aanay ka tegin salaadu oo haddii aanay ka teginna wuxuu tukanayaa daqiiqadaha u dambeeya salaada xilliga ay salaadu makruuha tahay waa salaada ta xigta horteed yar uun markaa waxyaabahaas oo dhammi qofka waxay ka dhigayaan mid Allah subxaanahu wa tacaala ka fog la qabsiga iyo in ay tahay mid balwad noqota ma aha wax dhibaato ku abuuraya carruurta dadka muslimiinta ah oo keliya ee waa mid dhibaato ku ah xataa carruurta dadka aan muslimiinta ahayn waana sababta loo soo saaray barnaamij daawo ka ah la qabsiga PUBG sidaa darteed waxaa waajib nagu adag ah in ay waalidiintu arrinkaa meel adag ka istaagaan mana bannaana inay carruurtooda u dhiibaan ciyaarta PUBG iyo ciyaaraha kale ee video gameska ah dhammaantoodba laga yaabaa ciyaaraha in yar oo ka mid ah in ay noqdaan xalaal oo madadaaladu sideedaba ma aha shay xaaraan ah haddii aanay khilaafsanayn shareecada waxaa laga yaabaa inay jiraan in yar oo ka mid ah video gameskaas oo aanay ku jirin waxyaabahaas aan soo sheegnay amase waxaa laga yaabaa inay yaalaan basuuqa ciyaaro waafaqsan shariicada islaamka laakiin waxa wanaagsan in ciyaaraha dhammaantoodba laga fogaado si guud ahaaneed haddii aanad hubin inay shareecada islaamka waafaqsan tahay iyo in kale oo aanay jabinaynin mid ka mid ah mabaadi'da islaamka waxaan ka codsanayaa waalidiinta muslimiinta ah in aanay noqon kuwa ka caajisa tarbiyadda carruurtooda oo aanay carruurta u dhiibin geemiskaas si ay howlahooda jaanis ugu helaan si bilaa buuqa waxaad baabiinaysaa nolosha ilmaha iyo sidoo kale noloshaada maxaa yeelay mid ka mida wadooyinka jannada lagu galo waxaa ka mid ah awlaad saalix ah oo kuu soo duceeya waxaanan ka codsanayaa waalidiinta muslimiinta ah iyo carruurta muslimiinta ahba in ay ka dheeraadaan oo aanay ciyaarin.